وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. سواء كدب وحنو شيغينا حدانو نهاي بيشتين لي وحنو شيغينا بدلان inaanu kala noqonnay codkayagii ahaa wax isku darsiga kow mar labaad waxa khalifay hagardaamada ay noo geysatay dawladda la yiraahdo Puntland oo maanta saddex jibaar 20 sano aanu gacan saar kala ahayn laba حقوقنا يدا ما أنت أنا فيني أنا قول 20 سنة سهل جميني أو دب يدف أنا وحول طبعا أنا سومر راي أي ما أنت أي هجر دامه وين وأنا ملايسني نقول فطي وحن سمينا مركا وحن وشيجينا مربات يوم مرسدحات وحن وشيجينا هجر دامه يعتعدي أي نقول فطي هديا كوانتو من دولة درس كانوا نهاي معمولة كانوا درس كنهاي بانو قعنصار يورا كشي بانو لا يلانينا سيدا سانو شيغينا ayaanu kalsooni aan ku lahayn kala noqonay sababta keentayna waxa weeye 20 iyo dhowr sano bay jiray xukuumaddu Abdullahi Yusuf waxa ku xigay Cabdo waxa ku xigay ninka la yiraahdo Abdurrahman Farole maanta aligaas oo maanta xilliga kan ee joogay ka dhacay doorashada waxa ku soo baxay Abdullahi Deni beeshatiin haddaanu nahay Saciid Abdullahi Deni dadkii soo dhaweeyay oo ka mid ahay kambeeyisa oo ahayn waxa weeye wixii xuquuq hore aan ugu lahayn waxaanu ka sugaynay inuu wax ku daro wixii reerku ku lahaa beeshatiin wixii uu ku lahaa xarig yar oo cadiira ayuu ahaa oo soo hayay xarigii isaga ayaa cunay waxaana waana marin hamaabiyay cidii siiyay soo garanaya ballantu waxay ahayd lugta reerku lugta wuxuu kula jiray halug Puntland wuxuu kula jiray halug lugta kale ay ballantu waxay inuu ku daro oo wasiir buu waxa ka dhigo wasiirkii Nica maanta mar hadii la waayay laga bilaabo bisha maanta 12 tahay 2019 haddaan nahay beesha tiile dhindhow iyo mid dheer waxa weeye waxa dal iyo dibad qurba joog waxaan go'aansanay inaanu ka baxno kala la kalsoonida iyo kala laabano waayo waxa keenay hadii lugtii وكل جري غيركو بدلان سعيد عبد الله دين sabab u noqday inuu gooyo hadda maxaa ka gooyo waa ninkii 99 naagood lahaa oo hal nin naag la ku qabsado yiri boqol ay dheeru xtar mayso waxa weeye hadii nicda yabda wax ka galay waxa weeye waxaan ogeysiinaynaa saraakiisha Puntland ugu jiday beesha tiile dabaleyda booliska kuwa yala jooga kuwa galgala jooga kuwa afur jooga waxaanu fariin u direynaa anagoo ka tashanay go'aankayga u dhacay haday tahay nabadoono mutacallimiin culimo arday waan meesha war ka haroogay su'aalku maahmaada waxa weeye dhamaan waxaan fariinaa laga bilaabo saacadan aan joogno in nawal meesha uu jooga soo dhaabo وسبحان الله وبالله التوفيق وحي كستب لغا غديو waxay ku baxay marka kugu kaliftaa meeshii derisayna ku carado deriskayna ku carado derisku waxa weeye deriska meesha hadan laga xiga waxa weeye Somaliland awalna waxay ahaan jirtay meesha bar iyo Somaliland bay warigeed baahay Somaliland waa ka soo goray Puntland baan u soo goray tolnimaan ku soo raacnay sidii adduunku wax uga socdaan baan ku soo raacnay kama aanan helin kumana haysano waxay hadda naga joogtaa inaanu kala noqono waxayagii annagu koox meesha tilmanihin boqor Cismaan iyo Maxamuud Cali Shire iyo bodayaashii la mid ahaa ragga ilaa iyo maalinta waxaanu doognay dhulka hawshiisa aan u weelayn nafciisa iyo warkiisa aan wax ka sugaynay haddii nafc ka soo baxay dawladda dambe oo dhalatay nafci waa naga goysay waa naga qarisay waa naga allowday waxaan hadda leenahay annana siday nooga allaween inaanu kala allowno oo aanu u noqono Somaliland waa ka tashanay wax go'aan aanu ka gaaray weeye haddii aan cudri naga jirtay oo askari naga jirtay askarigi waa ka soo qaadanaynaa haddii wax kale naga jirin waa ka soo qaadanaynaa waxa weeye dakhliga meesha ka socda oo ka socda boora
oo la yiraahdo xijiga la yiraahdo dakhliga ka soo baxa almadow ilaa dabagalgala ilaa karin hawratrood inta ka dhaxaysa waa xijiga ka ku yeela dhaqaale oo casuurta ka soo baxdo oo dawladda wax ka afcado dalka ka nooleeya marka way tahay waa la noqonay faleenka yagiina badbuuga soo gelin mayno wuxuu qabanayaa hargeysa jira hargeysa iyo inta loo gaaro waxaanu la nahay ma jiro waxaanu ka soo dhawaysanaynaa ma jiro waxaanu ka soo hargeysanana ma jiro mudaharaadkani wuxuu ku saabsan yahay hawshii aanu malaysanaynay dawladda Puntland buu ku saabsan yahay dawladdu waxaa 20 sano ayay jidhaa 20 sano dulmi ayaanu ku qabnay annagu ma aanan ku haysan waxa aanu ku leenahay ee sida beelaha kale ay ku leeyihiin ma haysan annagu waxaanu lahay wax yar oo maaragtay bardhexdaasa naloo magacaabay intii yaraydna waxa soo afjaray madaxweynaha hadda qabsaday سعيد عبد الله الدني سيدا درتين waxa mudaharaadka kiciyay waa intii yarayd oo qaatay ninkaas haddaanu waxaanu leenahay annaga waanu ka shaqayn jiray difaaca ilaa gaalkacayo ilaa iyo galgala ilaa iyo meesha la yiraahdo boosaaso qardho garowe meel aan qabriga iyagu tuusanayn oo difaaca ragga iyagu oo leyn ma jiro waxaanu difaacaynay calanka waxaanu difaacaynay ciidda waxaanu difaacaynay dalka waxaa difaacayigaanu difaacaynay maanaan helin waajibkii aanu lahayn ma helin waanu weyna waajibkayagii inaanala kaga tagay waxaan codsanaynaa marka dawladda Puntland haddaanay tanaasulin waxay nagu hayso haddaanay ka tanaasulin inaanu annaguna tashan doono waxay tahay dadka annaga nololida waxa qaybsaday qabiilada nololida intay doonaan bay haystaan baarlamaan bay leeyihiin xildhibaanay leeyihiin baarlamaan bay leeyihiin wasiiray leeyihiin madaxweyne ku-xigeen bay leeyihiin wax walba waa leeyihiin intaasaanu annagu heli karaa waa naloo diiday waxaan leenahay marka haddii aan dawladdu garwaaqsan waxqabadkayagii howlgalladayadii dhimashadayadii orodkayagii difaacayagii haddaanay garwaaqsan annaga waa dhagays garwaaqsanayna oo tashanayna dhammaan Soomaali way meel ay joogto waa salaamaya salaanka bacdi abashayada iyo mudaharaadka wuxuu ku saabsan yahay Puntland agtay nagu hayso hor iyo dibba cad bay nagu hayso naga Puntland waxa weeye dulmanaanu ahay iyo maalinka Puntland 20 sano Puntland ay haysatay dulmanaanu ahay waxa laale wax walba waxaanu ka ahayn dulmane waxa laale wax nala ka gali ma ayaan jirin intii uu qadka yarka oo cadiirka ka soo ku siman oo aan jeedashanaynay oo ku dulmanayn oo ku aamusnayn oo ku xishoonaynay baana la ka goost gaasiyadii baa yimi oo isimadii baa yimi oo ciidankii baa yimi oo sarkaaladii baa yimi oo warqadayadii baa banaanka la mariyay cagta la saaray kiile ma wuxuu noqday gaashaanka inta la laalaabo marna xabada la iska xay marna la kala baxo miyuu noqday maalin walba waa taaganahay yaga iyo baahidayada waxa aanu la cabanayna haddaanaan helin kuma jiro ciidan baa noogu jirayn sarkaalaan noogu jirayn waanaan doonayno waa kala baxayna cabatinka iyo baahida iyo dhibka maalin walba nala ku hayo dawladaha deriska aanu nahay oo maalin walba ku loolamaya iyagu oo walaalahaya harti baanu wada nahay waa maxamed harti waa maxamuud harti waa سعيد harti wali walba weeye maalin walba iyaga qaybsanaya xagee jira dulmiga iyo dhibaatada nala ku hayo maalin walbana gaashaanka nala ka xijiya lambar 1 baan fooda ugu jiraa xabada oo ku gomeelayo garow ila galgalaan daadsana
وحوي عباتن جاي أنت أصلا نكون أمسني ما له والله أنت أصلا نكون أمسني هدا وإحنا لك بدل واكب حناي رجع يدمر ما لا نكجا جزم رجع يدمر واكب حناي degmada ama tuulada kala dhac gaar ahaan beesha tiinle waxa weeyaan dulmaraan ayaan tirsanaynaa gobob ayaan tirsanaynaa waxyaabo badan ayaa caloosheeda ku wareegaya dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa cadka aanu leenahay inaanu helno inana tixgeliyo raggayaga ciidamadayada madaxdayada guurtidayada intaba in loo tixgeliyo inaanu ka mid noqono dawladda Puntland إن ركب بيه هرقمة على شغلتي إن ركبنا كلسوني بحذا وكلمه أما بدنمه رجعوا ما نقول ما تسيا قرح اللمبر وان بان كجرا حبة اللمبر وان بان كجرا دورشة اللمبر وان بان كجرا بدنمه ذكر اللمبر وان بان كجرا محانا كقضية دفتا ودفتا أنا كنو أنا قو أنا عيد معارضين أما عيد فرط كوفي قين دولة هنوتي كريسة ويا واجب كانوا لنا.